aniga iyo aabbaha Muuse Boqor oo naloo xiray xorriyadoonkii oo markaana qabna dharka maxabiiska qabna oo kaniisadda nalagu dhisay dhagax iyo jibinin kaniisadda anigu aabbahay raggii lagu dhisay uu ka mid yahay weli been baan moodayay meelay ka soo maqleen ma aqaane ciyaalkii xaafadda ila degnaa iyagoo cay igaga dhigaayo oo moodayay inay kiristaannimo oo loo dhisay raxan weyn bay u badnahay markaas waxay dhahayaan iyo xaafadda raxan weyn beesha raxan weyn baa u badnahay aan ku soo kor aabbaha kaniisad wax ka soo dhisay markaasaa hadlaysa anigu yaab aabbahaasoo kaniisad ku soo dhisay markii dambe taa la ii sheegay aabbahay oo maxbuus ah raggii kaniisadda qasabka loogu dhisay buu ka mid ah السلام عليكم كلنتي wanaagsan khiyaaray ku soo dhawaada han noolaato aniguna waa Yaanla Xuseen Cabdi barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo aan ku wareysanayno haddii Allah awood leh ogolaado Yaasiin Xaaji Muuse Boqor oo aan kula kulmayno magaalada Garowe halkan waan rabnay inaan wax ka weydiino taariikh badan oo la xiriirta nolosha Xaaji Muuse Boqor oo kamid ah dadkii ugu saameynta badnaa marka laga hadlo siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan waqtigii dawladda rayidka ay jirtay Xaaji Muuse Boqor waxa uu gaar ahaan u soo joogay waqti Soomaaliya aysan gob ahayn iyo waqti ay dawlad tahay iyo waqti ay burburayso oo ay xaaladeedu qatar ku jirto oo dawladnimadeedii si baabaayso waqtigaas dheer uu soo joogay Ilaahay cimri siiyay Yaasiin Xaaji Muuse Boqor ayaa barnaamijka marti ugu ah waan jeclaan lahaa bal inuu nala wadaago taariikhda Allah u naxariistay marxuum Xaaji Muuse Boqor Yaasiin soo dhow ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan bal wax ka ogaano taariikhda Xaaji Muuse Boqor waqtiguu dhashay meeshuu ku barbaaray hadduu Allah awood la ogolaado بسم الله الرحمن الرحيم ayaan la mahadsan tahay adiga iyo barnaamijkaaga ha noolaato aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan isu nimaadno oo aan maaragtay wixii aan iga wareysato oo aan ogahay waxaan maqlay iyo waxaan u soo joogay insha Allah ku soo gudbiyo marka ku soo dhawow Garowe haddii su'aashaada aan u soo noqdo Xaaji Muuse Boqor Cismaan wuxuu ka mid ahaa 9 wiil oo Boqor Cismaan uu dhalay wuxuu ku dhashay Baargaal 1911 sidii isaga aan ka soo gaaray ama dokumentigiisa ku qornaa 1911 uu ku dhashay halkaasuu diinta islaamka uu ku bartay ilaa dagaaladii Talyaaniga ee dhaceen kadibna aabihii baa waxaa loo musaafuriyey boqorkii markuu isa soo dhiibay Muqdisho xamar baa aabihii wuxuu Talyaaniga waxay yiraahdeen maxaa lagu qabtaa marka wuxuu ka codsaday wiilkiisa Muuse in loo keeno sidaasuu Xaaji Muuse aabihii xamar uu ku tagay dagaalkii Talyaanigu uu dawladnimada ku dhisayay saldanadii markaa jiray saldanadii majartaanka ka mid ahayd oo Talyaanigu la dagaalamay maxaa lagu ogayaa taariikhda dagaalkaas Talyaanigii iyo saldanadihii maxaa la yiraahdaa waa bariga jiray ama tii Baargaal iyo tii midda Hobyo dagaal badan baa dhex maray haba u badato dagaalka midda Baargaal Talyaanigu sidaad ogtahay si tartiiba buu ku soo galay markii hore dawladnimo u aqoonsanaa labadii saldanadood safaaradaha meesha u yaalay markii dambeetana hadde farsamo isaga istaraatiijiyo u degsaneed markii dambeetana wuxuu gaaray heer u yiraahdo hubka la soo xareeyo marka meesha la iska diiday markaan soo koobo waxa weeye hubkiina keena waa la diiday tii Hobyood aad dagaal weyn kama dhicin laakiin midii Baargaal dhowr sano fooda la isdaray ilaa markii dambe loo awood sheegtay boqortooyadii Baargaal marka Talyaanigu buu u sheegay Soomaalida inuu nidaamkan qabaliga ah ee boqortooyinka aysan jiri karin uu rabo inuu nidaam dawladeed dhiso Soomaalida ka dhaxaysa mise wuxuu rabo inuu isagu soo rabo ka fushado hadal waxba kuma dhameyn karin maya sida aad ogtahay ayaan loo European-kan iyo hadda Afrikaan-kan Afrika ku soo duulay problemkooda problem dhul kaliya mahna problem dhaqaale buu ahaa hadii aad baarto problem dhaqaale ahaa qasadkooduna ma wasan baahaynba in Soomaali wax la taro ama Afrika wax la taro ama dawlad loo dhiso program baa u degsanaa xataa wuxuu lahaa muddo lahaa muddadaas ay joogaan in dadka la mashquuliyo iyaga in madax la isu geliyo ilaa hadda waxa maanta la haysto waxa weeye mirihii ay noo beereen oo dhanka siyaasadda ah laakiin qorshahoodu maba ahan inay anaga wax noo hagaajiyaan ma ahan marka way dhacday marka in Hobyo iyo Baargaalba labadaba Talyaanigu gacanta ku dhigo oo burburiyo oo dadkii madaxda ka ahaana xamar geeyo dagaal iyo dagaal la'aanba Ilaahay baa u saqir oran maayo
laakiin wixii xun ilaahay looma nisbeeyey waxay noqotay waa u suurowday inuu gacanta uu ku dhigo dagaal iyo dagaal la-aanba inuu gacanta uu ku dhigo hadda waa ninkaaseeto caqliga badan fashiista wuxuu yeelay intii magaca lahayd ama micnaha lahayd ama dadka wax u sheegi kartay suldaanka iyo boqorkaba ha ugu horeeyaan inuu ka fogeeyo dalkii iyo dadkiiba uu geeyo magaalo kaleeto Soomaaliyeed laakiin muddo ay ku qaadanayso inay dadka ay xiriir iyo yeeshaan ama meesha ay la qabsadaan musaafirin baa looran jiray waa la musaafiriin wala waxyaalaha ay rabeen xoogaa yar oo iska cisayn jiray waxay rabaanna uu siin jiray laakiin haddana dalkii waa uu ka fogeeyey waxnana kama ay qaban karin meesha ka yimaadeen boqor Cismaan markii yaa weheliyay markuu tagay xamar 3 nin oo gacan yar ah baa la socotay oo sagala la shaqeynayso mar walba meel walba uu tagaayo waxaan hadda ilaalana maahan laakiin u qaadimaysay 3 waa la socotay markii dambeetan waa tan aabba uu soo dalbaday uu yiri Muuse la ii keeno aabba markab ka yimid Yemen baa amar la siiyey Boosaaso ku leexay baa la yiri Boosaaso ku leexday waxaan u maleynayaa 27kii odaga boqorka yimi adiga dhowr bilood ka bacdi inay ahayd 27kii 1927kii dhammaadkiisii buu ahaa boqorka markii uu soo dhiibay iyo 28 inay ahayd baan jeclahay marka uu aabbahay xamar uu tagaayo sheeko wili iga sheekeeyay wuxuu yiri markab dagaal buu ahaa waa i qaaday markabkii xamar intuusan tegin wuxuu nagu leexiyey hobyo ku leexday markabkii hobyo markaa ku leexanay nin baa soo koray buu yiri Soomaali ah ninkii markii uu soo koray aad baan ugu farxay maxaa jiray ciidamo Talyaani iyo baan la saaraa ninkii waa iswareysanay meeshaan isku barannay xamar maalin baan ka wada degnay anigu yiri ma garanaysaa ninkaas ninkuu yahay ma yaban xaaji diiriye way Allah u naxariisto odaga xaaji diiriye taariikhda dheer la raximullah xaaji diiriye wuxuu yiri markabkaasaan isku barannay dushiisa maalin baana dekada ka soo wada degnay dekadu waxay ahayd buu yiri curuba hoosteeda adigu dekad ma jirto markabku wuxuu ku xiranayaa badweyn buu ku xiranayaa saxiimad baa ku soo qaadaysa haddii passenger uu yahay iyo haddii alaab tahay saxiimaddu xeebta markay timaadana passengerka xataa dad baa qaadaya saadan biyaha u taaban ilaa ay xeebta ku geenay dad baa ku xambaaraya alaab haddee tahayna alaabtii dad baa qaadaya marka adigu wuu itusi jiray mar walba wuxuu dhihi jiray waa taa meeshii aan ka soo degay curuba hoosteeda waa meesha curuba laga dhisay hotel curuba laga dhisay sidaasuu marka odayga uu ku saas waxa markuu tagay marka waa 28 meelahaas 28 awalkeedii way odayga boqorku 3 bilood 4 bilood ma joogin marka uu leeyahay Muuse wiilkayga hal ii keen hadaa waxay taraysaan marka seel loola dhaqmay qoyskii marka reer boqor markay meesha tageen boqor Cismaan iyo dadkii la socday iyo waxa uu suubiyey taa odaga igaga sheekeeyay Talyaanigu waxa uu suubiyey 2 guri buu horta u dhisay waa garanaysaa meel ay ku olaan jirtay daartii Binkuweer gadaasheeda xalwo hiilal waa xasuusanaysaa xalwo hiilal daarta ka dambayso weyn wareegoo dhan oo 3 dabaqa boqor Cismaan baa loo dhisay dhulna waa la siiyey oo dadku hadda sidaa uga warhayaan dhulka la siiyeyna waxa weeye qabuuraha Sheekh Cali Suufi daa maqlayso tiyaatarka meel ma ka dhisan yahay soo raac kor soo aad ilaa villa Soomaaliya aad tagto adigu Sheekh Cali Suufi oo dhanna boqor Cismaan baa la siiyey oo waxa la yiri waxa doonta ka dhiso daarta 3 dabaqaana anigu ma garanayo inay dhisneed oo lagu wareejiyay isaga in loo dhisay ma kala garan karo suldaankana hade kuma aanay sheegin Xaaji Muuse kaliya ma suldaankana awowgay way oo anigu dhanka kanna reer Hobyan ka ahayo waxa la yiraahdaa Saara Xaaji Cismaan Sharmaarka ay dhashay abtiyaashay way Cabdishiid Cali Sharmaarka iyo abtige Allahu naxariisto suldaankana waxa loo suubiyay wareega ceelgaab oo dhan aad arkayso oo waxaan goomeystayaasha ah barxadda ceelgaab la yiraahdo iyo shaleema ceelgaab iyo halkaasna suldaanka la dejiyay tan boqorka haddaan sii raaco waxaa la kala siiyey 2 baabuur oo dhuxusha ku shaqeysa oo number 1 iyo number 2 ah boqorku wuxuu lahaan jiray odaga iga sheekay gaari
dhuxul ku shaqeeya taargada number 1 number 2na suldaanku ahaa dadka u adeega iyo maxaa la yiraahdaa iyo talyaanigaba bixin jiray oo ma garanaysaa laakiin wuxuu ahaa waxaasoo dhan waxa isku fuuqsanay nin xiran oo xabsi guri ku jira marmar waa soo bixi jiray oo meeluhu marmari jiray sawirada waa ku tusi doonaa mar iyaga u yeeri jiray oo wax weydiin jiray waxa kaliya uu ka talin jiray waxay ahayd maadaama uu wadanku talyaaniga uu ka dhigay qabiil qabiil marka qof Soomaali ah oo beesha daarooda oo la tooganayo maxkamad iyo ninka haysta talyaaniga wadankoo dhan ama gobolka haysta kulli markay soo saxiixaan ilaa boqor Cismaan uu saxiixo waagi dambe markuu dhinto aabay baa saxiixi jiray aabay lama toogan karin lama tooganin ilaa usaga uu raali ka noqdo in qofkaas sharcigaas lagu fulinayo laakiin wuxuu ahaa nin xiran darajana kuma uusan haysan ma garanaysa haddiiba xorriyaddii lagaa qaaday wax kaleeto lagu suubiyaa waxba ku tari maayaan marka dhulka iyo deegaanada inta leeg yaa degaya marka yaa kaloo weheliyo la geeyay dhulkaas labada saldanadoodba maya waxa jir waataan hadda kuu sheegayo wixii la is oran karo waxay ka hor imaan karaan danaha fashistiga ama la is oran karo waxay ummadday wax u sheegi karaan ama waa ka muuqdaan maahan labada saldanadood koonfurna rag baa laga keenay oo la geenayo bari ama magaalooyin kaleeta la geenayay adigu haddaad tahay ayaan leh oo aad ka soo horjeedo barnaamijka fashistiga uu wado deegaankaagii baa lagaa kaxeynayaa meel aad ku mashquusho dhowr sano baa lagu geenaya marka suldaankii keliya ma rag badan oo deegaanadan u dhashay Puntland baa la kaxeeyo koonfur la geeyay rag badan oo koonfurana oo wax ku oolana waa la soo qaaday ilaa iyo qandala lagu xiri jiray musaafirin baa loo xabis badan oo la ururiyay boqortooyada la socotay inay jiraan jidadka lagu dhisayo xabsiyada lagu dhisayo warar saasa maqli jirnay waa jiraan aniga hadda kula hadlay aabay Israel marka uu galay sheekada waa tagi doonaa محمود يوسف مورو وقرنيسا رحمه الله والله ونحرست أفكي سويه إيجيري وحان هيا صور نصيب ضرو ما أنا كوفيس أنا جي أبها مصبغر ونلو حري حرية دونكي ومركانا قبنا دركا محبيسكا قبنا وكنيسة نلقول إساي دقحية جبنين كنيسة أنا جو أبي رجي لقول إساي وكمدي weli been baan moodayay meelay ka soo maqleen ma aqaan ciyaalkii xaafadii la degnaa iyagoo cay igaga dhigaya oo moodayay inay kiristaannimo oo loo dhisay raxan weyn bay u badnahay markaas waxay dhahayaan iyo xaafadda raxan weyn beesha raxan weyn baa u badnahay aan ku soo kor aabbaha kaniisad wax ka soo dhisay markaasaa hadlaysa anigu yab aabbahaasoo kaniisad ku soo dhisay markii dambe taa la ii sheegay aabbahay oo maxbuus ah raggii kaniisadda qasabka loogu dhisay buu ka mid ah marka arrin jirtay waa lagu duleynay armaaba la yiri xataa katiinad baa ku xirnay sawirkaas markay dhisayaan lugaha katiinad baa kaga xiran dheer oo yaani si ayaan u cararin waa lagu dilay aabahay xataa dhaawacyaa ku yaal waa aniga uu tusay xabsiga gudihiisa lagu dilay marka wiilkii boqorka kaniisadda wax ka dhisay isagoo katiinad ku xiray waxaan ka xumahay maanta magaceeda inaan ku sheegi karin ayaan la wariyataa waa heli doontaa isagoo markaa xabsiga ku jira wiilka boqorkan ku soo xasuusanaya waxaa jirta naag Amerikaan oo wariye ah oo buug ka qortay oo ay leedahay xabsigan waxaan ugu tagay maaqan fashistiga say ugu ogolaadeen xabsiga waa kan xamar ku yaalo xeebta ku yaal xabsigan waxaan ugu tagay Principe yacni nin maaragtay ina boqor ah oo u xiran way wareysanaysaa wareysigaas haddaa yeesho xataa waa wax fiican oo macluumaad badan ku siinayo isagaa u warramay sababta u xiran yahay sababta loo dilaayo sababta maaragtay wax badan buu uga warramay marka waxa waa la soo maray wax badan baa la soo maray haddii marka boqorku uu dalbaday in wiilkiisa loo keeno sida Muuse boqor oo kale xamar la keenay si xabsi ku galay oo loogu dhisay guryaha wax loogu dhisay dhaqdhaqaaqi ugu horeeyay horta odagii waa boqorkii waa uu dhintay Allah u naxariisto 1933 buu dhintay waay wax walba markaa waxay ku soo furmeen
aabe boqortooyadii waa laisku qabtay adeerkay iyo aniga ina adeerkay waa maxamed boqor cusmaan oo aabahey la dhashay oo uradkii boqor cusmaan ahaa iyo waxaa isku qabtay ninka la yiraahdo boqor muuse yuusuf oo ah boqor burhaanka hadda jooga iyo boqor kinkoon boqor cabdullaahi iyo aabbahood baa isku qabtay tii saldanadii laisku qabtay mashaakilkaasna waa ku soo furmay tii siyaasadda oo odagu u baneeyeyna iyadana waa ku soo furantay kadib dalku xor ma ahayn siduu isaga ii sheegay fariimo uu faray boqorka intuusan dhiman inta uu noolaa fariimo uu faray in yacni sida inay is og yihiin nolosha inay isaga dambeynayaan oo kaleeto wuxuu yidhi muusow u kac dalkan in maaragtay midnimadana ogow midnimada soomaaliyeedna ogow adiga iskoolkan talyaaniga oo siyaasadda uu ka bartay ka sokow iskuolka runta ah uu ka soo baxay waxay ahayd wacyigelintii uu boqorka uu wacyigelinaya aabihiis u wacyigelinaya markaa way meeshaas dhaqdhaqaaqa siyaasaddaba wuxuu ka bilaabayba halgankii swal xabsigana wuxuu u galay waxaa weeye 3 jeer inta aan taariikhda ku hayo swal darteed baa loo xiray darteed buu yacni u dhibtoonaya xitaa waxaa jirtay mar talyaaniga in heshiis hoose uu doonayay inuu la galo aabahay anigu waan weydiiyey 1990 markaan Roma joogna waan weydiiyey oo uu leeyahay diyaar waxaan u ahay inaan labadii sidii Liibiya oo kale labadii saldanadood oo Hobyo iyo Baargaal inaan idiin celiyo xoolihiin idiin soo celiyo idin magdhabo laakiin hawshaan oo dhan iska daaya siyaasadda kale ka baxa iyo koonfur aabana waa uu ka diiday yaasiin waxa aan isweydiinaynaa reer boqor awlaadda uu dhalay boqor cusmaan waxay isqabteen markii boqorka issoo dhiib la yidhi oo la maquuniyey oo xaaladdu meel halisa marayso qaarna waxay yidhahdeen isma dhiibayno boqorka wuxuu yidhi waa isdhiibayaa saan dadka u badbaadiyo khilaafkan wuxuu keenay in la kala jabo horta khilaafkii koobaad taa maxaan ka ognaa saan kuu sheegay wey waxaa laisku qabay anigu dalkii gudahan galaya maxaa jira moor aan banaankan joogo ummaddiibuu sii dhibaya in dadkii aan boqorka mowqifkiisiba dadkii aan xukumay in maanta gacan talyaani ay ku jiraan anna aan banaanka ka joogaan dhibta la qaybsan xoogaa yacni wax ila qurxoon maaha gudahan galaya waana wacyi gelinaya haddaan iska qaadi karno iyo haddii nala wada haysanayo dadkayga inaa wax la wadaago xirsi boqor iyo ragay leeyihiin na waxay yidhaahdeen ilaah bay ka tahay annagoo caddaan iyo talyaan isma dhiibeen marka xaggee joogaan waxaa la joogaa waqooyi dalyara meesha loo bixiyey waa zoonahee markaa dalyarahaas carro dhulbahanta inay tahay baan u malaynaya hortaan dhawaa baan ka sheekeeyeyoo nin tunqurun la yidhaahdaa u yimid oo isaaq ah cabdullaahi jaamac wasiirka dekedaha ahaan jira awowgiis hooyadii dhalawe wuu u yimid wuxuu yidhi warqad baa telegramiya baa yimid waa lagu qabanaya ingiriiskaa ku qabanaya talyaaniba ku imaan maayo marka tasho markaas waa marka go-aankaba uu qaadanayo ninka ilaahay raalli ha ka noqdo markaa wuxuu go-aansaday inuu iska noqdo dadkiisana uu wax la qaybsado kumana khasaarinoo ra'yigii fikirkii uu qabay ilaa xamar watan uu la tegayo marka wiilashiisii qaar marka Itoobiya gali doona oo xirsi boqor halkaas uu ku dhintay qaar waqooyi bay sii joogeen xirsi boqorna wuxuu yidhi hubbaan waxaan u doonayaa Itoobiya waxaanba sheekada qaarkood waxayba leedahayba ragga talyaani markuu Itoobiya ku duulay raggii diriraayo Itoobiya wax ka difaacayay buu ka mid ah waa uu dhintay isagii Cumar Samatar laba qabriyo isku dhagan bay iyo nin kale too dhulbahanta ah ninkan ana maleenaya mahad gaas Itoobiya joogo Puntland wakiilka u ah awowgii inuu yahay baan jecla meel bay ku wada aasan yihiin haddaan xamar ku noqono marka awlaaddii uu dhalay boqorka muuse keliya loo geeyey muuse keliya ka joogay sababtaan annagu meesha ugu dhalannay way xamar laakiin adeeraday iyo reer boqorka kale waa imaan jira waa ka noqon jireen deegaan uma ahan adigu waagi dambeeto dhalyadii miinis waxaan ka wadaa aabbahay walaalihii ma ahane wixii sii dhaleen hadda axmed ismaaciil boqor oo korneel gaaray
harag shabeel oo corneel gaari oo capital commandoska xukumi jiray maxaa la yidhaahdaa cadda muuse oo janan ahaa raggaasoo dhan waa iyagoo yaryar bay yimaadeen wax ku barteen laakiin aabbahay walaalihii marnaba xamar ma degin marna marka aabbaha guurkiisa ugu horreeyey awlaadu dhalaya xamar ku dhalayba may aabbahay waataan kuu sheegay nin weyn buu ahaa xitaa walaalihii kama warhayoon anigu aabbanimo kaloosa kumaahan saaxiib hoosaan ahaan jiray aabbahay markii ugu horreysay wuxuu ku guursaday dharoor dooxada dharoor waxaa la yidhaahdaa waan tegey waa isasii taagay awoogey baa deganaa waxaa jira dhe awoogey boqor cismaan meel walba guri buu ku lahaa laakiin xaruntiisa waxay ahayd baargaal goddhurwaa aabbahay meeshii uu ku guursaday uu degey gabarina adeertii buu qabi jiray goddhurwaa buu ku guursaday ilaahay carruur ma kala siin dagaaladii baa dhacay sidii buu ku baxay kadib guurkiisa kale wuxuu ka bilaabmay xamar awlaadda marka xamar ku wada dhalaya xamar buu ku wada markuu tegeyba waa guursaday waayo waxaan joognaa markan uu xiran yahay marka oo isaga iyo maxaabiistii kale soomaalida ahayd lagu dhisayo talyaanigu ku dhisayo guryihii iyo kiniisadihii waktigaa marka waktiye ku beegan tahay waxa weeye walaashaysa marka xabsiga marka lagu dhisaayo waa marka labaad oo loo xiro weye waa markii labaad oo loo xiro walaashay saare muuse waxay dhalatay isagoo xabsi ku jira waa markaa kiniisadda lagu dhisaayo warqadaa la isdhaafsan jiray sidii aan ka soo xigtay walaashay maryan muuse boqor oo ah curaddeena hadda inta nool warqad buu xabsi ka soo diri jiray warqadda waa la akrinayaa iyaguna warqad bay u diri jireen waa loo sheegay gabar baa kuu dhalatay sahraha loo bixiyey buu yidhi warqad buu soo qoray laba gabdhood waagii kacaanka u dhashayna isagoo xabsiga ku jira waxaa dhalatay ruqiyo waagaas SYL loo xirayna waxaa dhalatay sahro dhagax tuurkii buu ah marka waktigaas ingiriiskaa jooga waa talyaani marka laga adkaaday kadib markaa la xiraya markaa maya talyaanigaa jooga markaa talyaanigaa jooga marka waa dagaalkii labaad ka hor dagaalkii labaad ka hor talyaanigii baa jooga waayo marka xaaji muuse halkaasuu marka ka bilaabay siyaasadda iyo halganka siyaasadda waxaa tiri qoyskii marka reer boqor waa isqabteen odagu markuu geeriyooday saldanada la isku qabtay haye boqor cismaan boqor walba marka uu nool yahay waa cayiman yahay weliyo axadka adigaa boqorkii ah dhowr wiil baa dhashay haddayan tiisa ayan u iman waxa dhaxalkaaga leh weliyo axadka sabab walba ha u lahaado marka ma curadka mase waa tilmaan annagu reer boqorkeenna caadaan leenahay maantaan kaaga sheekeenahay caadadaan leenahay waxa weeye waxaa iska leh horta ninka boqorka ah waa inuu guursadaa gabar dir ah qabiilka dir la yidhaah hadduu boqor noqdo waa inuu leeyahay bah direed waa qasab hadday suuroobi weyso haddii uu leeyahay bah direed bahdaas dirta ah wiilka ugu weyn hadday wiilal dhashay wiilkaasaa weliyo axada ilaahu hal sana hadduu jira xataa markuu aabihii dhinto waa loo sii haynaayo hadduu yahay xataa yabadhaale bahda yaryar hadduu yahay bahda yarba hadduu yahay bahdaas dirta ah ayaa dhaxal kale waa dhaxal kale kooda ugu weyn kooda ugu weyn laba jeer bay dhacday boqor cismaan bah direed buu ahaa waa laga weynaa 9 sanuu jiray ilaa uu ka qaangaaray uu guursadana waa loo hayay boqortooyada aabihii wuxuu dhintay 9 sano isagoo haddii la waayo waa inay tahay hooyadiisa leelkase bahda leelkase curadkeeda labadiiba waa la waayey haddii labadiiba la waayey waxaa weeye bahda ugu weyn wiilka curadka ah marka hadduusan laba bahoo kale oo bah dir ah bahdir iyo leelkase haddii la waayo markaa waxay noqonaysaa in maaragt bahda kale ku faataxay nidaamkaas qoladii doona aada nidaamkaaseeto baa yiilay bah direed buu lahaa boqor cismaan waxaa ugu weynaa yuusuf boqor waa boqor burhaanka hadda jooga awoogii aabihii dhalay wey yuusuf boqor marka uguma weyne laakiin bah dir buu ugu weyn yahay weliyo axad buu ahaa sawirka waa ku tusayaa xitaa seeftii wuxuu haystaa weliyo axadnimada yuusuf boqoroo weliyo axad ah
boqor cusmaanna uu nool yahay baa yuusuf boqor wuxa uu dhalay boqor muuse oo kinkoon iyo boqor burhaan iyo aabbahooda boqor cabdullaahi iyo aabbahooda ninka la yidhaahdo yuusuf boqor oo dhaxalka leh boqor cusmaanna uu nool yahay wiilna uu dhalay baa yuusuf boqor uu dhintay aabbihiisuu ka hormaray weliyo axadkii aan waxba dhaxlin baa aabbihii ka hormaray boqor cusmaan marka waa dhintay boqor cusmaan markuu dhintay baa marka waxaa barxaddii isugu soo baxay maxamed boqor oo curadkii ah reerkao dhan ugu weyn uguna xoolo badan iyo boqor muuse oo markaa boqor maaha markaa waxaa weeye muuse yuusuf oo aabbihii dhaxal sugu ah laakiin ma dhaxlin hadde raggu waa laisqabanayaaye war adigu aabbahaaba maadan dhaxline sidee awoogaa ku dhaxlaysa aabbahaaba awoogaaba ma dhaxlin abrax canzul waxaan u malaynahay 1945 baa la heshiiyey riwaayaduhu waa iska badan yihiin iyo sheekooyinku laakiin waxay isugu soo ururtaa nin shiikh ah oo annagana waalid noo ah baa kala saaray laakiin rag badan baa ka shaqeeyey in lagu qanciyo adeerkay maxamed boqor la yidhaahdo xoolo iyo saldanad isku darsan mayside wiilka adeerka u tahay u dah adigu 1945 baa si official ah boqor muuse boqor looga dhigay isqabadkii ugu horreeyuu ahaa marka 33gii ilaa 45kii buuqa waa jir reerka culeyskaas waa jira hadda wax gadaal hadda ka bilaabma maaha dadku waxay moodayeen kinkoon iyo boqor maxamuud iyo maahan taa arrintaas waa jirtay kadibna waa tan laga heshiiyey alxamdulillah markii waxa muuse yuusufa loo taraasay boqor muuse baa boqor noqday laakiin boqor muuse boqor yuusuf ma jiro boqor muuse yuusuf boqor cusmaan ma aabiis boqor ma ahan boqor cusmaan waanu hadda ku dhahay yaasiin boqor muuse oo kaleeto wey aabay boqor ma ahane wuxuu ahaa ina boqor buu ahaa marka muuse markaa loo talaasulay muuse yaa dhaxlay markaa muuse yuusuf boqor muuse markuu dhintay kama uusan tegin bahdireed marka bahleelkasana ma jirin marka waxay noqotay boqor maxamuud oo curadkii iyo kinkoon oo siyaasi oo funsionaari ah boqor cabdullah inay isku qabtaan tii haddee beeshoo dhan haddee laba qaybood la kala noqday oo khilaafkeeda meeshii uu gaaray la ogaa alxamdulilah markii dambeeto waa laga heshiiyey kinkoon waa u tanaasulay boqor cabdullaahi walaalkii markii dambe waa u tanaasulay siyaasadda aad baa layidhi sidii maxamed boqor loo yidhi dhaqaalaha aad baa ninkaan xaliyey hor siyaasaddii isku darsan mayside boqor waxaa noqday maxamuud baa laisugu wada tegey beeshii way midowday markii uu dhintay baa haddana waxaa isku qabtay ina maxamuud oo axmed ah iyo ninka la yidhaahdo boqor cabdullah anaa ilaahay isolonsiiyey oo guusha ilaahay waafajiyo waa isu geeyey waana gacantaan isu saaray boqorna waxaan ka dhiganay boqor cabdullah iyadoo raalli isaga yahay waa kinkoon markii dambeeto hadda waa boqor burhaan waa taariikh dheer runtii waana dad badan taas mar dhan inaan kaaga sheekay noqonayso iyo taariikhda boqortooyada taariikh dheer weyn si aan mar daba buuq u dhicin sababtoo hadda reer boqor cusmaan marka laga hadlo waa qoys ballaaran in marka waxa fiicnayd go-aan ugu dambayna laga gaaro oo reerkoo dhan isku yimaadaan oo la yidhaahdo hadda sida laysku dhaxli doono qaabkan xitaa haddaana marba la guursanaynin bahdir iyo bahleylkasi iyo la haynin maya ayaan la guur keliya maaha xitaa boqortooyadii awal sooma ahayn dhalid iyo someen fiiri hadda marna waxaa boqor maxamuud baa qabtay sooma aabbihii buu dhaxlay waxaa qabtay boqor cabdullah walaalkiis baa awal ma jiri haddana boqor burhaan baa qabtay oo haddana walaalkiis wey marka saddexdaba waxa weye 3 nin oo walaalo ah wey marka tii isdhaliddu way ka tagtay hadda waxa weeye annaga inteenna odayaasha ah reer boqorka ama reer yuusuf cusmaanka marka hore fadhiista bahdirta markaa qofkaan u garanno isdhaliddii iyo wixii iyo nidaamkii horeetay waa laga soo teg hadda waxa weeye uun ciddii la yidhaahdo si loo kala weyn laakiin waxa la yidhaha siyaasadda kama marno nin kastoo siyaasiya waa farfaraystaa boqorrada qaar xataa waa la duubtaa oo
reerku waa la dhex galay may anagu taas hadda siyaasaddu hadda waayahan dambeeta hadda iska soo baxday maahane waatii waxay ugu soo dhoweyd king kong iyo markii king kong la lahaa siyaasaddaada orod aad waxay ahayd waa la kala saarayay dhaqanka iyo siyaasadda maxaa jira dheh dhaqanka iyo siyaasadda hadda shuqul iskuma leh haddii ay shuqul isku yeeshaan aniga haddaan hadda boqor ahay aan reer boqor u noqdo haddana siyaasaddii aan galo madaxweyne iyo wasiir iyo miyaan hadal ka maqlahay anaaba siyaasadda boqorna waa yaa iga sarreey anaa ugu yar anaa ugu weyn yaa iga sarreynayo hadda waa dhaqan weye annagu waa dhaqan weeye iyo ixtiraam maxaa la yidhaha siyaasadduna waa halkeed qofkii qoyska reer boqor ka dhasho siyaasadda aadayo isagay jirta aad iyo aad yaasiin xaaji muuse aad u mahadsan tahay qaybtan intaan ku gabagabaynaya waxaan u galaynaa qaybtan ku saabsan aabe noloshiisii siyaasadda ayaa noo bilaabanaysa saamayntii uu ku lahaa siyaasadda markii talyaanigu joogay markii ingiriisku joogay SYL iyo halgankeedii iyo bilowgii markii la unkayo dowladnimada Soomaalida aan ka sheekayn doonaa ilaahina wuxuu qadaray inuu noolaado waqti dheer oo ugu dambeysay xitaa dalkii lagu kala mataqaana xaaladiisa xumaatay oo burburaya marka arrimahaas ka sheekayn doonaa si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid